baryahan waa la socotaan dhammaan dhibaato ayaa ka taagan magaalada Laascaano iyo deegaanka ku wareegaysan agaarkeeda. in badan oo horena waan ka hadalnay waxaase inayna gubayaan na dhibayaan annaan raalli ka ahayn kuna faraxsanayn kuna qanacsanayn dadkii dhintay oo Soomaaliyeed oo qaaliga ahana inaan aad iyo aad uga xunnahay ugana xanuunsanayn in badanna aan ku baaqnay nabadda war nabad ha laga taliyo meeshu si dhayal laysugu imaano layskuma diline arrimaa yaallo oo keenay in la isdilo. waxaan leenahay marka koowaad horta xabadda aan joojinno bal qoraga aan aamusino xabadda ka dhacayso. marka labaadna waxaan leenahay aan isu nimaado aan iswarsanno oo aan kala gar qaadanno oo aan kala garaawshiyo qaadanno arrimaha meesha yaallo indifferent yani afka qalad indifferent waxaa lagu yidhahaa waxba igama gelin ma dhihi karno waana khuseeyaan dadka dhimashadiisa iyo dhiiggiisa daadanayana waana khuseeyaan qadiyadaha meesha taaganina waana khuseeyaan horena waa uga hadalnayo qadiyad kasta si kasta u qaraaraatee waxay ku dhammaataa hadal unbay ku dhammaataa dil kuma dhammaato nimaadan kala guuri karin kala tegi karin meel aad kala aadi kartaan aanay jirin isku khasbantihiin isu muuqataan berri isu soo noqon doontaan aad og tahay inaad isu soo noqon doontaan in xaajadiinnu aanay isdil ku dhammaan karin waa garan kartaan. walaalahaas waxaan leenahay horta qoryaha iyo xabadaha hala aamusiyo hana la fadhiisto hala wada hadlo. horay dhowr sano ka hor yaa inta aanan xilka hadda haya aanan imaanin ayaa su-aashaas la ii weydiiyey. maalintaas wixii aan ka iraan weli ka qabaa mushkiladda ka taagan deegaankaas mushkilad siyaasadeed waaye. dad isdhalay isla dhashay qaraabo ah ehel ah wada deganaa meesha degan wax ka dhaxeeyo inay jiraan anigu ma qabo. wax ka dhaxeeya inay jiraan ma qabo. sida taariikhdii horeba inoo soo martayo dadka Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya ma jirin siyaasad qalloocataa qoorta isu gelisay. dadkaasi jooga deegaankaas waxay isku haystaan waa siyaasad. siyaasadaha ay isku haystaan waa run annaga ku jirta midnimo iyo wadajir iyo in Soomaali isku soo noqoto hal dawlad aan noqono hal calan aan yeelano hal maxaan ku iraahdaa aqoonsi oo caalami aan leenahay aan xoojisano waaye midda annaga nooga jirta. laakiin weligeena nagu jirtay hadda naguma soo dhalan kumaanaan raadin xoog iyo dil iyo muxuu ahaaye لأن inaan sugno waqti sugno sugitaanku qof nooga dhiman maaha laakiin inaan degdegno isgalna qofaa nooga dhimanayso. marka nabadda midnimada annaga waa midnimadan mid aan ajandaha meesha nooga jiro waa ajanda midnimo laakiin ajandaha midnimo nabad in lagu doono waa rabnaa. maamulka Somaliland walaalaha waxaan ugu baaqaynaa xabadda inay dhaafaan dadka ay la hadlaan. walaalaha reer Laascaano iyo deegaanka deganne waxa aad rabtaan nabadaad ku heli kartaan adinkuna nabad ku doonaan leena. dowladda Soomaaliyana xaaje aanay waxba ka qusayn maana waxba naga qusayo. waa dadaalnay dhinac walba waa la hadalnay waa u caqli celinay waana daba taagnaanayna inta horta qoryo ay ka degayaan qoryo ay ka aamusayaan si dhab ah oo kama dambaysa ay u aamusayaan kadibna wada hadal inta la yimaado la isqanciyo qof ilaan Soomaali 33 sano joognaa walaalayaal waa iskhasbi weynay waa ismaquuni weynay walaalo waxay ku dhaanta waa weynay waxaan maanta meesha u fadhino oo ninka maxaan ku raadayay galmudug ka yimiday iyo kan Jubbaland geeskeeda xagga ka yimiday kii xamar ka yimid iyo kii Jowhar ka yimiday iyo kulli ay baydhabo u fadhiyaan
dan la-aan uma fadhiyaane walaalow inaan laysdhahaa loo fadhiyaa waana laysdhahay waana lagu wadaa waana ka aragnaa ididiile iyo taana intaa kama duwana xoog yaan lagu raadinin dadka xoog laguma hayn karo xukun xoog laguma hayn karo talo xoogaan kuugu talinayaa lama dhihi karo rabitaana la isugu taliyaa nidaam lagu heshiiyaa la isugu taliyaa dadka meeshaas joogana xaqay u leeyihiin waxa lagu xukumaya sida loo xukumaya sida ay rabaan inay taladeeda wax ku leeyihiin ayagana waxaan leenahay war waa leedihiin xuquuqdiina iyo xorriyadiina iyo masiirkiina inaad taladiisa lahaataan laakiin sida si dhaanta ha lagu jiriyo dhiig daata si aan ahayn ha lagu jiriyo way imaanaysaa in maxaanku idhahdaa xalka lagu gaaro miis korkiisa marka ay bilaabanaysay balaayadan waxaan idhi walaalayaal berri yaanan qubuuraha korkooda intaan isku salaanno oon hab isi siino xabadka isi saarno yaanan meesha ka soconin ee hadda inta aanay qubuuruhu aanay jirin ama aanay badanin aan heshiino mowqifkaasaan taagannahay waxaa sidoo kale aan aad iyo aad u bogaadinaynaa labada dhinacba inayna dhegaystaan markay timaado xagga nabadda iyo xabad joojinta iyo maxaa colaad yaraynta iyo waxa markay timaado waa ka mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa idinkamana dheerin waa idinla joognaa yaan leenahay waxaanan rabnaa idinkoo raalli isku ah haddaad isla jiraysaanna adikoo raalli isku ah inaad isla jirtaan haddaad kala tegaysaanna adikoo raalli isku ah inaad kala tagtaan dhiig daadanayana aydan iskula jirin mid kaloo daadanayana aydan ku kala tegin inta aan idinla jecelnahay waa intaas